mid ka mid ah isimada sida weyn looga yaqaano Soomaaliya oo sidoo kalena caan ka ah gobolada Puntland ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso. Maxamed Deeq Cabdalla ayaa warbixintan ka soo diray Boosaaso. Yusuf Ahmed Saalax oo kamid ah isimada ugu magaca weyn dalka Soomaaliya deegaanada Puntland ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso kadib markii isinku uu muddo sanad ku maqnaa magaalada Muqdisho iyo magaalada Kismaayo isagoo ka qayb galay dhismihii dawladda federaaliga ee haatan jirta iyo dhismihii maamulka Jubbooyinka ee loo doortay madaxweyne Axmed Madoobe. Boqolaal dadweynaha oo kaga hortagay Sultan Yusuf Ahmed Saalax garoonka diyaaradaha ee Bandar Qaasim ee Boosaaso ayaa ku soo dhaweeyay sacabo furan iyo dareen farxadeed iyadoo halkaasina lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed kuwaasi markii uu soo degay iyana halkaas ay ku soo bandhigeen gaada ka ciyaar kala duwan waxaan inta kadib uu ka hadlay socdaalkiisa magaalada Boosaaso. marka xiga waxaan u mahad celinayaa dadweynaha reer Boosaaso oo qaybo kala duwan ka kooban oo igu soo dhaweeyay magaalada maanta imaatinkaygan waxa weeye soo dhaweynta diiran ee dabka ka kulul waxa weeye uga mahad celinayaa ehelnimada iyo gacaltooyadu ay ka muuqato taa haddaan inta uga gudbo waxa weeye muddadii sanadka aan maqnaa waxa weeye war la qaba xiisa ma laho markii hore xamar baanu ku hormaray dhismaha dawladda federaalka iyo doorashadii xilligii ay taagnayd taasna si halaaziyo wanaagsan bay ku dhammaatay oo warkeeda kulley idaacadaha iyo meel walbaad kala socoteen taasu markay dhammaatayna waxaan u gudbay magaalada Kismaayo oo maamulkii ku meelgaarka ahaa ee halkaa gacanta ku hayay oo codsaday in gogol ay dhigaan dadweynaha Jubbooyinka ay isugu yimaadaan gogoshaas ayaan dadku u horeeyo ka jawaabay baan ka mid ahayn halka haddaan tagay muddo 5 bilood bay gogoshaas u tiilay hadduu Ilaahay idamka leeyahay iyaduna si wanaagsan bay ku dhamaatay oo maamulka maanta jira oo Axmed Madoobe madaxweynuhu ka yahay maaragta halka ka soo baxay isimada oo inta badan lagu yaqaan inay bulshada ku wacyigeliyaan adkeynta amniga iyo xasiloonida ayaa suldaanku waxa uu shacabka deegaanada Puntland ugu baaqay maadaama la galayo doorashadii Puntland in amniga ay adkeeyaan waxa weeye waad ogtihiin macna muddo kooban wax yar kadib Puntland waxay gali doontaa doorasho iyadana dadweynaha reer Puntland waxaan ugu baaqayaa in laga shaqeeyo xasiloonida in la iska daayo shidada qofka Ilaahay u qoray baa doorashada ku soo bixi doona. Yusuf Ahmed Saalax waxa hore uga tagay deegaanada Puntland isagoo kamid ah odayaasha dhaqanka ee Puntland ee u socdaal dhismihii dawladda federaaliga ee Soomaaliya. Maxamed Deeq Cabdalla, TV-ga caalamiga Somali Channel, Boosaaso. mid ka mid ah isimada sida weyn looga yaqaano Soomaaliya oo sidoo kalena caan ka ah gobolada Puntland ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso. Maxamed Deeq Cabdalla ayaa warbixintan ka soo diray Boosaaso. Yusuf Ahmed Saalax oo kamid ah isimada ugu magaca weyn dalka Soomaaliya deegaanada Puntland ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso kadib markii isinku uu muddo sanad ku maqnaa magaalada Muqdisho iyo magaalada Kismaayo isagoo ka qayb galay dhismihii dawladda federaaliga ee haatan jirta iyo dhismihii maamulka Jubbooyinka ee loo doortay madaxweyne Axmed Madoobe. Boqolaal dadweynaha oo kaga hortagay Sultan Yusuf Ahmed Saalax garoonka diyaaradaha ee Bandar Qaasim ee Boosaaso ayaa ku soo dhaweeyay sacabo furan iyo dareen farxadeed iyadoo halkaasina lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed kuwaasi markii uu soo degay iyana halkaas ay ku soo bandhigeen gaada ka ciyaar kala duwan waxaan inta kadib uu ka hadlay socdaalkiisa magaalada Boosaaso. marka xiga waxaan u mahad celinayaa dadweynaha reer Boosaaso oo qaybo kala duwan ka kooban oo igu soo dhaweeyay magaalada maanta imaatinkaygan waxa weeye soo dhaweynta